laba bilood ka hor waxaan soo galnay muuqaal ku saabsan video editing-ka waxaana daawaday 10,000 oo qof waxaana like saaray 1,000 qof maanta waxaan go'aansanay inaan ka soo sameeyno part 2 muuqaalkan dhexdiisa waxaan kuugu hayaa akhbaar ka farxin doonta fadlan dhammaysa muuqaalka si ayna kuu dhaafin akhbaartaasi waxaan ku baran doonaa muuqaalkan dhexdiisa sida loo sameeyo class broken slide animation tag smart cut magnifying glass open head class broken soo gasho background buluug ah kadibna soo qaado shaygii aad doonaysid inaad broken ku samayso hadda anigu waxaan soo qaadan doonaa thumbnail-kan kadibna soo gasho muuqaalkan iskugu jira green screen iyo blue screen kadibna waxaan ka saari doonaa midabka greenka ah haddaba saan uga saarno waxaan tagi doonaa buttonka remove background waxaan ka sii dooran doonaa chroma key kadibna waxaan ka dooran doonaa midabka greenka ah intensity-giisana waxaan ka dhigi doonaa 80 kadib muuqaalka waan save garaysan doonaa markaan muuqaalkii save garaysano waxaad saari doontaa background-kii iyo blue screen-kii kadibna waxaad soo qaadan doontaa background cusub waxaadna soo gelin doontaa muuqaalkan save garaysanay waxaan ka saari doonaa blue screen-ka waxaan ku dhufan doonaa remove background chroma key waxaana ka sii dooran doonaa blue screen saawad aragtaan waxay nooga baxay blue screen-kii muuqaalkiina sanay soo baxay wali waxbaa ka dhiman waxaad ka ilowda milaxdii kaalay horta macunta ayaan samaynaynay maanun muuqaal edit garaynaynin ifahaniyow milaxda waxaan ula jeedaa sound effects-ka waxa muuqaalka dhadhan u yeelaa waa sound effect-ga bal ku dar oo siduu noqdo tijaabi okay waxaan ku dari doonaa sound effect waxaana isla eegi doonaa bal siduu soo baxay slide animation soo qaado background-ka aad jeceshahay kadibna soo geli thumbnail-iska aad doonayso inaad ku samayso slide animation background-ka waxaad ka dhigi doontaa 6 second thumbnail-ka koowaadna waxaad ka dhigi doontaa isagna 6 second kadibna zoom soo dhah thumbnail-ka ilaa ay ka muuqato loogadu kadibna dhinac u riix key frame-ka koowaad waxaad ku qaban doontaa afka hore thumbnail-ka key frame-ka labaadna xagga ugu dambaysa kadibna zoom out soo dheh oo soo yaree kadibna halkan dhig waxaad geli doontaa graph waxaadna ka sii dooran doontaa graph-kan hadda waxaan soo gelin doonaa thumbnail-ka labaad oo zoom soo dheh ilaa ay loogadu ka muuqanayso kadibna dhinac u riix key frame-ka koowaadna waxaad ku qaban doontaa 2 second ilaa 3 second dhexdooda key frame-ka labaadna waxaad ku qaban doontaa 5 second ilaa 6 second dhexdooda kadibna soo yaree oo soo agdhig thumbnail-kii hore kadibna waxaad raaci doontaa graph-kii kadib soo qaado thumbnail-ka saddexaad isagana zoom soo dheh ilaa ay loogadu ka muuqanayso kadib dhinac u riix key frame-ka koowaadna waxaad ku qaban doontaa 4 second key frame-ka labaadna 5 second kadib soo yaree oo soo agdhig thumbnail-iskii hore oo raaci graph-kii soo qaado thumbnail-ka afraad isagana zoom soo dheh ilaa ay loogadu ka muuqanayso dhinac u riix isagana kadibna key frame-ka koowaad waxaad ku qaban doontaa 4 second ilaa 5 second dhexdooda key frame-ka labaadna waxaad ku qaban doontaa 5 second iyo waxoogaa yar kadibna soo yaree oo soo agdhig thumbnail-iskii hore oo raaci graph-kii fiiro gaar ah waa inay noqdaan key frame-yada aad ku darayso kuwa si isku ag xigxiga bal han isla eegno say soo baxeen markaan raacino sound effects-ka ogeysiis ma doonaysa inaad ka qayb gasho kooraska Soomaali editor ee video editing-ka jeebkuna nacas ma ka yahay waxaan ku hayaa bakhtiyaa nasiib hadduu jeebkaagu ku ciilay yuuna nasiibkaagu ku ciilin bakhtiyaa nasiibkaasna wuxuu noqon doonaa ka dooro hal number inta u dhaxaysa 1 ilaa 80 hadduu nasiibkaagu ku saacido oo soo qorto lambarka loo baahan yahay waxaad heli doontaa kooras free ah oo ku baran doonta video editing-ka channelkana subscribe iyo like ka ilaawin nasiib wacan marka aad doonayso inaad samayso matchcad waxaad u baahan tahay inaad ogaato qoraalka aad diiradda saari doonto tusaale ahaan anigu waxaan diiradda saari doonaa kelmadda video editing kadib waxaan geli doonaa Google-ha waxaan ku qori doonaa what is the video editing waxaana screenshot ka soo qaadi doontaa website kala farduwan oo kelmadda video editing ku jirto kadibna waxaad imaan doontaa CapCut waxaad soo gelin doontaa screenshot-kii kadibna waan jarjari doonaa waxaad ka dhigi doontaa afarta screenshot ugu horeeya 0.3 second inta kalena 0.2 second kadibna waxaan soo gelin doonaa shape-kan markaana waxaan u bedeli doonaa highlight haddaba saan ugu bedelna highlight waxaan ku dhufan doonaa splice waxaana ka sii dooran doonaa darkan sida waxaan ku haysanaa highlight-ka haddaba waxaan ku beegi doonaa kelmadda video editing anigoo zoom soo odhanaya kadib screenshot-ka kalena waxaad ku beegi doontaa highlight-ka kelmadda video editing saana waxaan ku haysanaa tag smart cut waa tan natiijadu markaan ku darnay sound effects-ka
magnifying glass soo gasho background-ka aad rabto kadibna ku qor magaca channel-kaaga koobi ku samee oo mid kasta meel kala duwan dhig kadibna soo save garee muuqaalka kadibna qoraalka mid u saar markaana soo gali muuqaalka soo save gareysay kadibna waxaad ku dhufan doontaa buttonka maski waxaana ka sii dooran doontaa circle kadibna waxaad ku dhufan doontaa keyframe sidan oo kale waxaana ku dari doontaa garaafkan kadibna waxaa soo qaadan doonaa weynaysada waxaana leekaysiin doonaa goobada inta ay leeg tahay kadibna waxaad ku qaban doontaa keyframe fiiro gaar ah keyframe-kaad ku qabanayso weynaysada iyo keyframe-kaad ku qabanayso goobada waa inay isku meel yihiin hal garaafna waa inaad wada raaciso goobada waxaan ku qabanay 3 keyframe weynaysadana waxaan ku qabanay 3 keyframe waxaana raacinay garaafkan kadibna waxay noo soo baxay sidan open head soo qaada background-ka aad jeceshahay kadibna soo gali ninkan copy dheh oo is hoos dhig markaa waxaad dooran doontaa sawirka koobaad kadibna waxaad tegi doontaa buttonka maski waxaana kasii dooran doontaa horizontal in yar ayaad kor u qaadi doontaa haddana waxaad tegi doontaa sawirka labaad kadibna waxaad tegi doontaa maski oo waxaad kasii dooran doontaa horizontal kadibna rotationka waxaad ka dhigi doontaa 180 degree kadib ku dhufo sawirka koobaad oo keyframe ku dar in yar ayaad socon doontaa oo keyframe-ka labaad ayaa ku qaban doontaa kadibna waxaad tegi doontaa basic rotationka waxaad ka dhigi doontaa 42 scale-kana waxaad ka dhigi doontaa 98 position x-na waxaad ka dhigi doontaa -186 position y-na waxaad ka dhigi doontaa -296 hadda waxay noo furmay madaxii haddaba sidee madax wax uga soo dhex saarnaa okay soo kasho waxaad doonaysaa inaad madaxa ka soo dhex saarto hadda anigu waxaan doonayaa inaan ka soo dhex saaro loogada YouTube waad yareyn doontaa kadibna keyframe ayaad ku qaban doontaa waxoogaa yar ayaad socon doontaa oo kor ayaad u soo saari doontaa haddana keyframe saddexaad ayaan ku qaban doonaa oo dhinac ayaanu riixi doonaa okay sidaan loogada ninka ugu hoos mariyaa waxaad ku dhufan doontaa buttonka layer kadibna loogada ayaad keeni doontaa xagga ugu horeysa yacni sidan oo kale bal hasla fiirin natiijada okay waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii fadlan nagu sharaf 1 subscribe saan u gaarnay 6000 oo subscribe waad ku mahadsan tahay daawashadaada wasaayo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh